الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة على النبي أكرم مبعوث بخير في أفضل الأمم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى تدوات كان وحين سوق علينا بوغيني طبناد برنامج كيني نحرك بوغاكته. buugga toddobaadkan aynu qaadan doono waxaa loo yaqaanaa furaha ganacsiga. waxaa qoray saciid cali shire waa cilmi baare iyo aqoon-yahan iyo qoraa ku takhasusay cilmigaas ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo wixii la xidhiidha. waa ganacsade ama mulkiilaha iminka laga aasaasay buu ku jiraa bangigan Amal Bank. saciid cali shire wuxuu qoray in ka badan ilaa adigu imika 4-5 buug intaan ka warqabo anigu, laakiin 3 buugun baan arkay buugaagtiisa oo aad u mutawaafir oo aad inoo soo gaadhay. buuggan loo yaqaano aan maanta gacanta ku haynay furaha ganacsiga iyo buuggan bangiyada islaamka oo buugaagtii ugu horreeyay fannigaas aan ka akhristay intaanan takhasuska bilaawin ahaa. buuggan kale loo yaqaano hogaamiye. buuggan daabacadiisii koowaad waxay soo baxday I think baan u malaynayaa 2008 tii labaadna 2014 marka tan inagina soo gaadhay waa tii 2014 la daabacay. buuggan daa'imanna sideedabana saciid cali shire buugaagtiisa 3 buugaan akhristay. buugaagta kale waxay kaga duwan yihiin waa buugaag u qoran qaab cilmiyeysan oo akaademiya. isaguna suu sheegaya waa buuggan wuxuu ka mid yahay buugaagta muqararka jaamacado badan muqararka ah oo lagu daraasiyo college badan. waxaanan hubaa haddii uu luuqad kale oo saddexaad ama luuqad kale labaad uu turjumi lahaa oo loo turjumi lahaa inuu noqon lahaa buugaag la daraaseeyo jaamacadaha iyo akaademiyada iyo maxadada lagu daraaseeyo. buuggu wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood iyo 16 cutub. waa buug xaashada soo rogtaba cilmi baadhis ay ku qoran tahay oo matalan markuu ka warramayo wuxuu odhanayaa Soomaalida cilmi baadhis uu ganacsigeeda ku sameeyay xagee fikradaha ka keentaan Soomaalida gudaha iyo Soomaalida dibadda. tirada proportionka percentage waa intee wuxuu odhanayaa 86% baan leeyahay. waa fikrado copy halka kuwa dibaddu ay yihiin 81%. yacni xaashadaad soo rogto buugga ama baalkaad soo rogtaa waxa ku qoran barsidaad ka goyoon maayeen maanta dhan cutub dul istaaga xaashada dul istaago aan soo akhriyo. insha Allah taala waxaan ka bixin doonaa tilmaamooyin iyo ishaarooyin yar oo kooban. qaybta koowaad oo kala wuxuu kaga warramaya waxa uu muuqaal guud ka bixinayaa saciid ganacsiga iyo ganacsatada. 3 cutub ee ugu horeeya waxa uu saciid ku lafaguraya oo kaga warramaya waxa loo yaqaano ganacsiga yar small businesska sida uu dhasho iyo xiriirka ka dhaxeeya dawladda iyo ganacsiga yar. waxa uu soo gudbinayaa dhowr qeexinood uu leeyahay ganacsiga yar. wuxuu isku dayay marka hore inuu ganacsiga yar qeexo. wuxuu soo gudbinayaa dhowr qeexinood iyadoo loo eegayo halbeegyada tirada dadka ka shaqeeya iyo iibka iyo faa'iidada. yacni marka la qeexayo wax lagu qeexo waxa kamid ah halbeegyo oo dadka ka shaqeeyo markuu ku saleynaya halbeegiisa, mar iibku ku saleynaya, mar faa'iidadu ku saleynaya oo qeexitaankiisa ku saleynaya. wuxuu ka warramayaa ahmiyada uu leeyahay ganacsiga yar. tusaale wuxuu soo qaadanaya wuxuu leeyahay Mareykanka oo kale 97% shirkadka wax dhoofiya inay iyaga yihiin, yani small businesska inay yihiin. wuxuu leeyahay in ku dhawaad 60 milyan oo qof ay ka shaqeeyaan small businesska. bal fiirso 60 milyan baa ka shaqeeya buu leeyahay Mareykanka markuu daraasadda soo gudbinayo ganacsiga yar. yani waxay ku tusaysaa tirada dadka ah ee ka shaqeynaysa small businesska iyo percentage-ka xitaa exportiga ay dhoofinayaan. waxba Soomaalida imka haysta waxa kamid ah shaqaale la'aanta. waxaa laga yaabaa qofkii hadduu hal abuur la yimaado dhalinyarada hal abuur ganacsi ay bilowdo waxa laga yaabaa inuu
saddex afar hebel oo 5 qof ama 6 qof 7 qof oo garanayo oo shaqaalaysiiyo bulshadii yani saddexdaa shantaa qof 6daa qof waxay ugu fadhidaa wax weyn oo 6 qof oo camal laan laga soo kaxeeyo oo employment la keenay bay la mid tahay. wuxuu ka warramayaa Soomaalida ee ganacsiga yaryar iyo waxyaabaha ka hortaagan small businesska. wuxuu ka warramayaa waxa kamid ah buu leeyahay sida dawlad la'aanta, isdhexgal la'aan, hoggaan xumo. saddexdaas uu kusoo koobaya. waxa uu tilmaamayaa in Soomaalidu aad ugu fiican tahay ka faa'iideysiga suuqa kacsan, turbulent market waxa loo yaqaano. turbulent marketka inay aad ugu fiican tahay yani suuqa kacsan. waxa uu ka jawaabayaa sida uu ku dhasho ganacsiga yaryar, soo ku tilmaamaya 2 arrimood midkood ay ku dhashaa buu leeyahay ganacsiga yaryar. wuxuu leeyahay wax kugu riixa oo push factor loo yaqaano iyo wax kugu soo jiida oo pull factor loo yaqaano. waxa uu ka warramayaa markuu ka warramayo tusaale markuu hore waxa kugu riixa waxa kamid ah buu oranayaa shaqo la'aanta. kow khilaaf soo kala dhex gala qofka iyo shirkadda, waa qofka hadduu markaa shaqaale yahay. waxa kugu soo jiida waxa kamid ah buu oranayaa xiisa loo qabo xorriyad, qofku inuu xorriyad u shaqaysto, iyo hilow iyo kalgacayl loo qabo in qofku meel sare gaadho. 3 iyo inuu hanti la helo. waxa kale oo uu tilmaamayaa in dawladdu dawladdu inay door muhiim ah ku leedahay ganacsiga yaryar iyo inay caawin karto si ay u kobcaan ganacsiga yaryar. waxa uu kale oo ka warramayaa maadaama buugu aad u fara badan yahay waxaan isku dayi doonaa inaan qodobeeyo marka waxaan filayaa inaan igu daali doono mararka qaar baan tilmaamaya qodobada 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 marka waxaan filayaa inaan igu daali doono insha Allah taala. markuu ka warramayo entrepreneurka markuu ka warramayo wuxuu ka bixinayaa muuqaal guud entrepreneurku muxuu yahay, entrepreneurka lagu dayan karo waa kee, waxyaabo uu soo gudbinaya marka kamid tahay. waxa uu ka warramayaa ilaa 9 dabeecadood uu leeyahay entrepreneurku. waxa uu ka warramayaa waxay ku kala duwan yihiin entrepreneurka iyo mulkiila maamulo yani own managerka waxa loo yaqaano. muuqaalka entrepreneurka lagu dayan karo waxa kamid ah buu leeyahay 4 model: xirfad guud, xirfad maamul uu leeyahay, dabeecad inuu leeyahay wanaagsan, iyo qaab dhaqan entrepreneurnimo inuu leeyahay. waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira qaybtan waxa kamid ah hal-abuurnimada iyo ikhtiraca. waxa uu soo gudbinayaa kala duwanaanshaha maskaxda u fakarta qaab hal-abuurnimo creativity-ga leh iyo ta u fakarta qaab mantiqa yani rational ta u fakarta. tusaalahaan maskaxda hal-abuurka lehi wuxuu leeyahay waxay raadisaa su'aalo yani weydiisaa, halka ta kale buu leeyahay ay raadiso warcelino iyo jawaabo. wuxuu leeyahay 5 wax ayay ku xidhan tahay buu leeyahay hal-abuurnimada shirkadaha yaryar. 5 wax bay ku xidhan tahay buu leeyahay. 1 wuxuu leeyahay bay'adda shirkadaas yani farmanka shirkadaas ay ka dhisan tahay oo aad buu saameynaya. 2 dhaqanka shirkadda. 3 buu leeyahay hoggaanka iyo hoggaaminta shirkadaas leedahay. 4 hantida iyo xirfadda yani resource-ka iyo skills-ka ay shirkadaas haysatay yani. 5 qaab maamulka shirkadaas maamulkeedu yahay. wuxuu leeyahay 2 hab ayaa guud ahaan kor loogu qaada hal-abuurnimada shirkadaha. 1 wuxuu leeyahay maskax maaxis waxa loo yaqaan brainstorming waxa loo yaqaano, iyo qiyaas analogy. in wax cusub wuxuu leeyahay in wax cusub la daahfaydo innovation la yimaada waxay ka kooban tahay 4 qaacido ama 4 model buu leeyahay. wuxuu leeyahay 1 cilmi baadhis iyo horumarin waxa loo yaqaano waxa shirkadu yaqaanaan R&D. 2 baahida iyo rabitaanka macaamiisha market pull model waxa loo yaqaano. 3 isku xidhka daahfurka gudaha iyo dibadda shirkadda. 4 in la isku keeno buu leeyahay 3 model ee sare yani 3 model ee soo sheegnay la isku keeno. waxa uu leeyahay sida Henry Ford cabiro macaamiishu markasta wuxuu leeyahay ma yaqaanaan waxay u baahan yihiin. macaamilku wuxuu u baahan yahay ma yaqaano buu leeyahay. Ford baa dee markii la weydiiyey Henry Ford waad garanaysaan mar la weydiiyey macaamiisha ma weydiina maxay u baahan yihiin yani xilligaana waxa shaqayn jiray gawaadhidan farduhu kaxeeyaan wiilisku saaran yihiin wiilisku taayirada wiiliska ay wareejiyaan.
markii la weydiiyey ma weydiina macaamiisha maxay u baahan yihiin, wuxuu ku jawaabay haddaynu weydiino macaamiisha maxay u baahan yihiin, waxaa odhanaya waxaan u baahanay faras dheereeya. yacni macmiilku had iyo jeer ama aadamuhu wixii fahamkiisa ay aagiisa ku hareeraysan buu ka fikiraa. wuxuu leeyahay markaa waa inaad adigu macmiilka wuxuu abuurtaa. dee iminkana waad garanaysaanoo qaabka ay social mediahu nolosheena u saameeyey. yacni every second kasta oo attentionkaagaas baa la doonaya in laga faa'iidaysto. yacni mobilkaaga aad iskolarganaysa, aad smart touchka aad gacanta ku wada iyo laptopkaaga social media aad ku dhex jirto, waxaa la doonayaa viewgaaga keliya iyo indhahaaga keliya in laga faa'iidaysto, lacag laga dhaliyo la isku daya. waxaa privacy-gaaga oo dhan baa la xifdiyey, waxaad u baahantahay, waxaad xiiseynaysid, wixii oo dhan baa la qaybay. yacni waa lagu fikiray. qaybta labaad waxay ka waramaysaa bilaabista iyo badbaadinta ganacsiga. waxa uu soo minguurinayaa model ka kooban 3 tiir, yani 3 pillars, kaasoo fududeeya sidii lagu heli lahaa fursad dahabi ah, yani fursad wax ku ool ah. 3 tiir waxay kala yihiin: 1, aqoon loo leeyahay suuqa iyo macaamiisha, yani aqoon fiican in loo leeyahay suuqa iyo macaamiisha. waxay ku yimaadaan labadaasuna dee waxbarasho iyo qofku inuu experience xirfad u leeyahay. 2, tiirka labaad waxa weeyaan dhiifoonaanta, alterness waxa loo yaqaano alterness, yani qofku inuu qof soo jeedo dhiifoon noqdo, oo shirkadu inay shirkad dhiifoon noqoto. iyo tiirka saddexaad waa shabakada networka. waxa uu soo gudbinayaa cilmi baaris yani statistical ah oo lagu sameeyey meelaha ay Soomaalidu ka keenaan fursadaha. Soomaalidu xaggay ka helaan fursadaha. wuxuu qaybinayaa Soomaalida gudaha iyo Soomaalida dibadda. tusaale wuxuu oranayaa marka uu ka warramayo wuxuu oranayaa meelaha ugu badan ay Soomaalidu guduhu ka helaan fikradaha waa in qof ay kaga daydaan. boqolkiiba wuxuu leeyahay waxa ay ganacsiga Soomaalida ka yihiinna 8 xalay 86 halka buu leeyahay Soomaalida dibadda ama dadka Soomaalida dibaddu boqolkiiba 80 ay fikradaha ay minguuriyaan oo ay koobi gareeyaan oo dad kale kaga daydaan. guud ahaan fikraduhu 3 ayay u qaybsamaan buu leeyahay fikradaha ganacsiga: wax cusub, wax la minguuriyo koobiya, iyo suuq falanqayn ama marketplace wax loo yaqaano. wuxuu leeyahay 3 nooc oo kale fikradaha waa loo helaa. 3 nooc oo kalena fikradaha waa lagu helaa buu leeyahay. inaad lahaato buug fikradeed, yani buug yarood fikradaha ku qortid oo notebook aad isticmaashid, maalintii intaas oo bilyan oo milyan oo kumanaan baa ina soo mara oo fikradoodba maskaxdeena mara. waxyaalba maskaxdeed ka mid ay maskaxdeena attention-ka si ay u weeraysaa. waxaa yar haddii aanad diiwaangelin oo aanad dawinin oo aanad qorin, waxa laga yaabaa inaad sikana ka bacdi inaad ilowdid. marka fikrad baa kugu soo dhacaysa suuqaad oo maraya, adigoo meel cafeteria fadhiya, adigoo iskuulkaaga dhiganaya, adigoo jaamacadaada ku jira, adigoo yani nolol maalmeedkaaga ku jira oo wax akhrisanaya, adigoo buuga daalacanaya ee fikrad ku soo dhacaysa. fikradda noodka buugaaga ku qor, buugaaga ganacsiga u samee. yani haddaad ganacsiga involved ku taho aad u xiisaysid, buugaa ku qor fikradaha. 2, market analysis waxa loo yaqaano suuqeynad. waxa loo yaqaan maskax maaxis, waxa loo yaqaan brainstorming. intaad meel fadhiisatid maskaxda inaad ka shaqaysid oo aad brainstorming ku samaysid, brainstorming inaad ku samaysid. 3, iyo khadka inaad ka baadhid, yani internet databases inaad ka baadhid fikradaha, oo maqaalaad akhrisatid, videoyaad daawatid ka warramaya ganacsiga. wuxuu leeyahay si aad fikradaada heshay ugu bedesho fursad, yani fikrad baad heshay, saad fikradaada heshay ugu bedesho fursad. wuxuu leeyahay waa inaad 3dan isku keentaa. 3dan laabudda waa inaad 3dan isku keentaa buu leeyahay. 1, fikraddii oo fursad imika noqotay, yani fikraddii waa inaad fursad u bedeshaa, opportunity waa inaad bedeshaa, yani wax loo baahan yahay waa inaad fikraddii u bedeshaa, opportunity waa inaad chance-ka waa inaad ka faa'iidaystaa. 2, hantidii lagu bilaawi lahaa waa inaad haysaa, waa inaad doontaa hantidii lagu bilaawi lahaa, haddaadan hayna waa inaad doontaa. 3, kooxdii kula shaqayn lahayd, tiimkii kula shaqayn lahaa. 3daas haddaanad haynin weligaaba fikradaaga diiwaangeli. fikraddii waa inaad fursad u bedeshaa, hantii lagu bilaawi lahaa waa inaad haysaa, kooxdii kula shaqayn lahaydna waa inaad haysaa. 3daa markaa waa inaad isu keentaa.
wuxuu leeyahay qofka saddexdaas isu keena baa loo yaqaanaa qof hal abuur leh, qof dadka ku wanaagsan oo dadka dhexgeli kara oo interpersonal ah, iyo qof hogaamiya. Yani qofka saddexdaas isu keenaya waa qof hogaamiya kulliba. laba oo qof hal abuur oo dee waa kan fikradda curiyey. saddex dee tiimku wuxuu u baahan yahay isdhexgal iyo interpersonal u baahan yahay, marka waa qof xirfadaana haysto ku fiican. qorshaha ganacsigu isna wuxuu ka mid yahay tiirarka ama aasaaska uu ku taagaya ganacsigu. isna wuu ka warramaya Saciid Cali Shire guud ahaan qorshaha ganacsigu waxa uu maraa buu leeyahay 3 marxaladood, 3 stages buu maraa. meesha aad joogtid, halka aad u socotid, iyo wixii ku gaarsiin lahaa qorshahaaga qoran. Saciid Cali Shire marka uu ka warramaya saddexdan si faahfaahsan buu uga warramaya, cilmiyeysan buu uga warramaya qaabka qorshaha loo dejisto, helinka uu maro, waxaas oo dhan buu ka warramaya. insha Allah taala buugaad ugu noqon doontaan. ganacsigu markuu ka warramaya ganacsigu waxa uu maraa buu leeyahay meerto, yani business cycle waxa loo yaqaan English aan lagu yaqaanin ku dhiganay jaamacadeena. wuxuu leeyahay marka hore waa fikrad bilow ah, waa kobac ganacsigu, waa qaangaadh buu noqdaa marka saddexaad, marka afraad hoos buu soo dhacaa. business cycle waa sidaas, waa bilow, kobac, qaangaadh iyo hoos u dhac. wuxuu leeyahay ganacsigu laba hal ayuu u xun yahay, yani laba stage buu xun yahay, marka uu bilowga yahay iyo marka uu hoos u dhac ku jiro. labadaas waxa uu baahan yahay buu leeyahay sabir iyo suuqeyn, market analysis wax loo yaqaano. iibka in iibka kor loo qaado, koska in laga baaraan dego oo hoos loo dhigo haddii la yareyn karayo, iyo wixii lamid ah ee lagu badbaadin karay ganacsiga. labada kale buu leeyahay iyagu waxay u baahan yihiin inaad ka faa'iidaysato, yani inaad alternative lahaataan social different oo soo jeedid oo aad ka faa'iidaysatid labada dib markuu ganacsigu ku jiro kobaca iyo qaangaadhka markuu ku jiro. wuxuu leeyahay qofka garta marxaladda ganacsiga ku jira 4 business cycle-ka, yani wuxuu leeyahay waa qof proactive ah, garanaya ganacsigiisu markuu kacsan yahay, markuu dhacsan yahay. sidaa daraadeed marnaba ganacsigiisaas ma fail gareeyo, ma guul daraysanayo, waayo wuxuu ogyahay ganacsigiisu marxaladdu ku jiro. wuxuu leeyahay 5 waxyaabood ay ka qayb qaatay inay shirkadii kobcdo, oo shirkaddu inay kobac samayso, growth inay samayso: jihada suuqa, heerka daahfaydka innovationka waxa loo yaqaano, iyo 3 nooca iyo baaxadda tartanka, 4 dabeecadda suuqu la suntada, yani suuqa la target gareeya dabeecaddu leeyahay, 5 aqbalaadda shaqaalaha. yani 5taa waxyaabood baa ka qayb qaatay buu leeyahay inay shirkada kacdo. waa jihada suuqa loo socdo, heerka daahfaydka ama innovationka waxa loo yaqaano shirkada innovation leedahay iyo heerkeeda, nooca baaxadda tartanka competitionka ku jirta noocu yahay, dabeecadda suuqa la suntaday targetka dabeecadiisa, iyo aqbalaadda shaqaalaha. wuxuu leeyahay 4 sababood ayaa keena buu leeyahay dhimashada iyo guuldarrada ganacsiga. kow wuxuu leeyahay asbaabo la xidhiidha sayladda ganacsiga, yani marketka sababa la xidhiidha oo wax adiga ka baxsan weyna marketkaas, iyo ama inflation ahaado ama recession ahaado, wuxuu doonaba ha ahaado, yani sixir barar iyo dhaqaale la'aan iyo wuxuu doonaba ha ahaado. asbaabo la xidhiidha shirkadda internalkeeda, asbaabo la xidhiidha inay khilaaf soo kala dhex galo, wax noocaasa. 3 asbaabo la xidhiidha maamulka iyo maaliyadda, asbaabo la xidhiidha buu leeyahay mulkiilaha, maamulka iyo shaqaalaha. yani waxaa jirta wax loo yaqaano ninka mayar xasuusniye, shaqaalaha iyo maamulka iyo mulkiilaha khilaaf soo kala dhex gala, oo mid walba niirisiya wuxuu doonaya mulkiilu wuxuu doonayaa inuu stakeholders wuxuu doonayaa inuu hantidiisu korodho, maamulku wuxuu doonayaa inuu stakeholders inuu si isku siman wax ugu qaybiyo, shaqaale wuxuu doonayaa baahiyo gaar ah mushaharkiin loo kordhiyo, doonaya promotion la siiyo, shaacadiin laga dhimanayna, bayadii laga hagaajiyo doonaya. yani haddii yani khilaaf noocaas uu soo kala dhex galo, ganacsiga wuxuu keenayaa guuldarruu keenayaa. qaybta saddexaad waxa uu kaga warramaya mawduucyo kala duwan oo ah tiirarka ganacsiga. waxaa ka mid ah suuqgeynta, oo ah wax aan waqti ku qoondaysnayn, mar bilaabmata weligeedna jirta ilaa iyo inta ganacsigu jiro. wuxuu ka warramayaa suuqa layskuma wada ballaadhiyo buu leeyahay. wuxuu leeyahay suuqa layskuma wada ballaadhiyo ee waa la qaybiya, yani waxaa la sameeya market segmentation wax loo yaqaano. wuxuu leeyahay haddii aad suuqa ablaysid ood kala qaybisid, waxaad ka faa'iidaysaa kow inaad fahanto macmiil walba baahidiisa iyo nidiskiisa inaad fahantid iyo wantiskiisa. tartanka suuqa, 2 inaad tartanka suuqa aad u fahanto oo competition iskaga iyo tartan kula jirta aad fahantid. 3 istiraatiijiyada suuqeyneed inaad lahaatid, meesha iyo targetka qaybsa inaad istiraatiijiyada lahaatid. 4 inaad kala ogaatid suuqa dihin, yani suuqa kobcaya iyo alaabta soconaysa, iibku halkuu ku badan yahay,
waxyaabaha inaad kala ogaatid. yacni wuxuu ka wadaa market segmentationka businesskaaga inaad kala qaybisid oo North America, bariga Yurub, galbeedka Yurub, bariga Africa, galbeedka Africa. yacni businesskaaga haddaad dhulka Soomaaliya joogtidna bariga, galbeedka, waqooyiga, koonfurta, yacni meel walba inaad ogaatid baahiyahooda iyo suuqooda iyo istaraatiijiyad suuq inaad u samaysid. Matalan dadka Hargeysa ku nool iyo dadka Muqdisho ku nool isku si baahi gaara ma qabaan. dadka ku nool Ceerigaabo iyo dadka ku nool Kismaayo isku baahi gaar ma qabaan. dadka Nairobi ku nool iyo dadka Addis Ababa ku nool isku baahi ma qabaan. yacni inaad kala qaybiso market waxa kuu fududaanaya inaad istaraatiijiyad suuq inaad lahaatid. waxau ka warramayaa wuxuu leeyahay suuqa waxa uu u baahan yahay suuq baadhis buu leeyahay market research waxa loo yaqaano. wuxuu leeyahay market researchku wuxuu maraa hilin buu leeyahay. uu ka bilowmo buu leeyahay qeexidda dhibta la qeexo. labo qaabka aad u sameynaysid daraasadda yacni methodology waxaynu naqaano. 3 xog soo ururin xogtii inaad soo ururisid. 4 ablaableynta xogtii yacni analyzing inaad samaysid. 4 inaad turjuntid xogtii oo soo bandhigtid waxaanu naqaano reporting waxaynu naqaano. wuxuu leeyahay sidoo kale tartanku wuxuu leeyahay waa meelaha ganacsigu ku fashilmo ama ku waaro. tartan baad gelaysaa. tartankaad gelaysid dee suuqaasaad gelaysaa soo maaha. suuqaad gelaysid cid walba way joogtaa maaha suuq oligopoly iyo monopoly maaha oo cid kootaysan maaha xidhan. tartan baa ka jira suuqa aad gelaysaa wuxuu baahan tartanka ama waad ku fashilin ama waad ku soo bixin. wuxuu leeyahay daraasad ay sameeyeen level 1993 wuxuu leeyahay 1993 daraasad ay sameeyeen ninka uu magaciisa xusay. wuxuu leeyahay waxa la ogaaday in shirkadii ay shirkada kale kaga duwanaan karto 3 wax. yacni marka la joogo competitionka tayada, kharashka iyo kala duwanaanta. inay labada shirkad wax kala duwan hadalkii waa dheereeyay welina buuggii ka maangayoonin. wuxuu ka warramayaa ganacsiga sidoo kale waxa aanu ka maarmin buu leeyahay anshax iyo qaab dhaqanka wanaagsan iyo dhaqanka iyo usluubta wanaagsan. marka shirkada gudaheeda la joogo iyo marka yacni looga baxsan yahay yacni shirkada gudaheeda marka joogna qaab dhaqan lagu dhaqmo suuban. dibadda marka la joogno inkastoo Saciid Cali Shir anshaxa wax ka taataabtay waxaan jecelahay inaan bal ka yar warramo aan comment ka yar bixiyo. yacni shirkadaha reer galbeedka ama computational economy ama computational business wax loo yaqaano iyo Islamic business waxay ku kala duwan yihiin. yacni Islamic businessku waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa kamid ah Islamic businessku waxay leeyihiin waxyaabaha lagu majeerta cilmi baarisuha laga qoray xitaa iyagu ay ka qoraan waxa kamid ah Islamic businesska ama Islamic economiga ama Islamic bankinga ama isku wada dar waxa islaamka oo dhanba waxay leeyihiin ethics iyo codes qeexan oo xadidan oo suuban. halkii uu leeyahay shirkadaha computationalka ahi ay aad ugu liitaan matalan oo kala tusaale islaamka waxa xaraanka ah yacni wuxuu leeyahay codes buu leeyahay buyuuc mamnuuca oo xaraama sida matalan inaad iibisid maandooriyaasha oo kala waa xaraan. laakiin wuxuu leeyahay daroogada reer galbeed iyo business iyo computational businesska waa sharci bay ka yihiin. tusaale ahaan halka wuxuu ka warramayaa khaliif oo kala 2001 daraasad uu sameeyay wuxuu soo gudbinayaa anshaxa islaamku inuu la gaar yahay laba rukni yacni laba tiir. 1 tawxiidka, 2 iyo toosnaanta istiqaamada. labada tiir buu leeyahay khaliif ayaa hagaya islaamka anshaxiisa business codeskiisa. sidoo kale wuxuu soo gudbinayaa daraasad ay sameeyeen Xanafi iyo Salam 1995 waxay soo gudbinayaan labada nin 6 xeer oo anshaxa ganacsiga islaamka uu ka duulo yacni uu ku dul fadhiyo. 1 amaano truthfulness inay leedahay. 2 run. 3 walaaltinimo ama brotherhood waxa loo yaqaano. 4 aqoon iyo daraasad. 5 cadaalad justice. sidaas awgeed kulay waan dheereeyay hadalkii iyo faaladii waan dheereeyay intaasaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo. waa buug aad iyo aad u faa'iido badan
notekiisa waxaan qoray aduu 2021 bilowgiisii baan qoray insha Allah tacaala isagoo PDF ana waxaan idin kula wadaagi free waxaan idin kula wadaagi doonaa intan ka badan waxaan idin kula wadaagi doonaa Telegram kan idin soo dhigi doonaa channelka Telegram kan idin soo dhigi doonaa halkaas aad kala degi doontaan intaasaan jeclayna kusoo gabagabaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk